إخوة الكرام صاد مغليسين خطبتنا وحي كصاب سنين إن لقود دالو حلاشة هدين نقول لهيت ذاتيا عنتدا عاد أفكا قلين يسد مركز عاد عون يسد إني عنتا أهان إني وأهاتو عنتا حلالة وحاد عبي يسد مركا إني نقدان وحلالة سيدو كالي إنكم كأت سمينيسد oo aad caruurtaada ka quudinaysid oo aad ku cibaadaysanaysid inay noqdaan ama inuu noqdo income si xalaal ah kugu soo galay khudbadeena maanta intaas ay xoog saaraysay sidaas daraadeed walaalayaal waxaan ka hadli doonaa insha Allah hadii inta qofka laga waayo maxaa dhacay muxuu ilaahay noo sheegay muxuu nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam noo sheegay إلهي عز وجل ولا ليال آيات دي أنكو بالله وحنكو أمريا دتك مؤمنين تدتك ما أركس مؤمنين تلاقي وحنكو أمريا أما بنا آدك جود أهامبا إلهي وحول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إلهي وحول يا دضو وحا عن ذل كادقني أنت حلاشا كعنا حلاشا إيه حرام تمركي الله يسبر برنجو حلاشا بدن حاران تاير كلا وحولي وحي حرام كفو هذا وحي حلالا عنا مركا ولا ليال حلاشا مركا وحي نقون كرتا اما وحان كدقي كرنا سان شاقنيبا وحا مركاس افكا لقليني انو نقضو حلالا مالمهان وحا ادو صوبتي ولا ليال والدين تا inay ka aqbaleen caruurtooda maqaaxiyadaha iskuulaadka lagu soo amaanay ee ashyaada ama cuntada xaraamta ee lagu gado inay ma arkaysaa caruurtooda ay ka quudiyaan walaalayaal maqaaxiyo aan ognahay in shay xaraan ah ama hilib doonfaar ah lagu gado ayaa waxaa la dhihi certificate xalaal ay haystaan ama ma arkaysaa vegetarian aan ka iibsanaynaa annaga waxa xaraamta iskuma taawano marka walaalayaal taas cudurdaar ma noqonayso shay xaraama meel lagu gaday ama lagu kariyay cuntadii kale aad xalaasha moodayna inaysan xalaal noqon bay u badan tahay way isgaarayaan marka caruurtiina cadaab ka badbaadiyo leeyahay ilaahay xaraam ha siinina KFC-gan oo dadku inta badan ay galaan baan maalin galay ninkii ka shaqeynayaan weydiiyay wuxuu igu dhahay xalaal ma aha waad arki kartaa certificate xalaal meel ku dhigama chicken ka meel xalaal laga soo gataa in lagu dhaho laakiin isweydii haday shay xaraam meesha ay ku kariyaan aakhiradaada ka badbaadso caruurtaada badbaadi naftaada badbaadi ka fogow hadaad baaragta maqaaxida inay shay xaraam ay gadayso walaalayaal aan ka fogaano sidaas daraadeed waxaan cabaynana inuu noqdo wax xalaal ah oo ilaahay u raali ka yahay تاتس واي إلهي حتى أنبياء أي الله اللي وحوده ورنولك وحياله حلاشة بدن حلاشة هل عنو إلهي عز وجل يا أيها الناس يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إلهي أنبياء دي سيساقوا الله اللي وحوليه هاي وحا طيبات كأي وناكسن إي حلاشة عنا أنبياء الله اللي عمل وناكسن السمايا مركا ولا لي العرور تعد الشين أو للربي إناد إذنك هقامسان إني إذن هقاميان حسميننا هداد أركت قف عرورتي سمقاحيدا هسجيني كلا هذا المسؤولية بكاسر هذه أنا مركان كسر تقنع عنتدا سي حلاشة مقاحيدا لقى عن ولا ليال قضب كلوات عن ربينات كأطابته وإنكم كلا شقي صناي قف كمسلم كأه إنه سنق عن هورسن شيل الله سيوسن وفريسن شريعة الإسلام كافرتي إلهي بافري لكن هدنا وحا إنكم كأت كسمين يسد إنه إنكم كاسي حلال كون نقضه لوا لنعبه وإنا كفير ساه وجهك كوادا كفيرين يسد كمبانيغا على الشقين يسد ما حي سميان بيزنس كودا بيزنس حلال أمية هي وإنا تا كفير ساه هدي بيزنس كوسن حلال أهين أو برودكت عن حلال أهين أدقذي يسد إلهي عن رالي كأهين وإناد كفوجاته إنكم كأكسم يسنا حرام بونقنا يا عرور تأت كقود سينا حرام بات كقود سين
taas waa businesska haddii businesska uu xalaal yahay wixii qofka aad ku heshiiseen waa inaad samaysaa agreement baad saxiixday terms baa ku qoran qodobaa ku qoran waxa waa inaad samaysaa waa inaad intaad samaysid haddii aan ku dhaho 9 to 5 xafiiskaanaad ii fadhinaysaa $250 a day baan ku beygaraynaya hadduu qofka ku dhaho xafiiskaasi ilaa fasaxaad uga baxdid fasaxaad qaadata ama arrin kugu soo korodha oo qofkii ku shaqaaleeyey oo og yahay iyo qofkii ku beygaraynaya ay og yihiin laakiin inaad dhahdid 2 saac baan meesha fadhinaya haddaan baxana cid kale i ogaanaysa ma jirto haddaad dhahdid ogow 2 saac baa xalaal ka ah income-kaaga inta kale xalaal maaha waayo qofkii ku aaminay baad khiyaanaysaa wixii terms qofka aad kula heshiisayna waa inaad deliver garaysaa haddii kale caruurtaadii xaaraan baad quudinaysaa sidaa doonta isu fadwo adiga shaydaan baa qofka u fadwoonaya dhowr meelna wax kaa soo geliyo wuxuu ku dhihi waa caadi waa la samayn karaa caadi maaha waxyaabaha ka baxsan weyda bani aadana tahay qofka la hadal u sheeg maanta inaan dhaqso baxaan u baahanahay ama maanta xilli horaan baxay then markaas isagii jirtaa inuu ku beygareeya minuu maarkiisa uu kaa jaro marka walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiid jismi kasta oo xaaraan laga quudiyey naar baa u dambaysuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka shay yar aad cuntay cadaab ku geynaya walaalayaal inaa iska dhaaftaa kaaga fudud soo maaha waxyaabaha xaaraamta keenaya waxaa ka mid ah walaalayaal ribadaa ka mid ah heshiisyada aad wax ku qaadanaysaan iska fiiriya temis yar qodobo yaraa ku jira aadan fahmi karin ama dadka kala warayso ha lagaa aqriyo haddaadan aqrin karin haddii wax yaroo ribo meesha uu ku jiro iska fogey gawaari maalmahan la qaadanaya la ii sheegay mar dhaxaas aan la hadlay waxaa laygu dhahay qoladii aan ka qaadan lahaa oo la ii tilmaamay baa igu dhahay ribo way ku jirtaa ninka weliba wuxuu ii raaciyey mar kastoo qof ribo iga waraysto igu dhahay conversationkeena halkaasuu ku dhammaadaa buu igu yidhi jawaabteydana waa haa inay ribo ku jirto nina iyadoo qoraala labadii company aan la hadlay saasay igu dhahan dadkiina waxay leeyihiin ribo ma aha waa heshiis caadi ah intii aad lagula heshiiyaad bixinaysaa laakiin meesha terms waxaa ku jira haddaad default samaysid in meesha interest la saarayo culimadana waxay leeyihiin marba haddaad contracting noocaas oo kale aad saxiixdid xitaa haddaadan default samaynin lacagtii ama shaygii ribow noqon aad ku qaadatay marka walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah laaluushka waad aragteen wadamadeena iyo qaaradda aan ka imaanayba xafiiskaa tagtaba intii la isku ogaamaanay in kale oo laba jibaaraa saaran oo laaluusha qof kaa qaadanaya si howsha lagugu fududeeyo iyaduna waa xaaraam waxaa ka mid ah waxyaabaha tuugnimada lagu qaato walaalayaal marka waan wada garanaynaa waxaan u baahannahay marka insha allah aan isu dardaarmaynaa walaalayaal inaan iska ilaalino waxyaabaha oo xaaraamta ah caruurteena inaanan ku quudin nafteenana inaadan siinin insha allah walaalayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa marka xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii safarka dheer galay ee timihiisii boorka fuulay ee isku dardarsameen rafaadsan musaafir ah la sheegay musaafirka ducadiisa inay mustajaabo tahay haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkaasaa ilaahay intuu gacanta kor u taagay oo ilaahay la hadlay baa ducadii lagu soo celiyey waxna laga aqbalin buu yidhi nabiga calayhi salaam maxaa keenaya marka rasuulka calayhi salaam wuxuu yidhi wuxuu cunaya waa xaaraam wuxuu cabaaya xaaraam waaye dharka uu ku labisan yahay waa xaaraam sow ilaahay ducadiisu u aqbalaya yuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam jawaabtu waa maya marka walaal haddaan rabnaan ducadeena ilaahay aqbalo nolosheena inay barako gasho caruurtu inuu ilaahay noo badbaadiyo xaasaska inuu ilaahay noo badbaadiyo haddaan u baahannahay waa inaan xalaal ka quudinaa haddii xalaal laga quudin waayo badbaado lama sugayo familkii waa kala soconaya dhibaatooyin badanaa dhacay walaalayaal kama dhigna laba famil kasta kala tagay inay xaaraan cuneen taa ha u fahmin waa wax dhici kara taa laakiin xaaraamtu familka barakaday ka qaadaa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم انصرهم على عدوهم اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا يا الله اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.